kulanti wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale ciyaar xiiso badnayd oo aanu falanqayn doono mar kale horyaalka kala horeynta ma jadwalka wax badan iska bedelayaan runtii dhibca oo laga waayay dhibca ay waysay kooxda kubadda cagta Liverpool oo la joojiyay iyo City oo tababaraheedii hore hadiyad qaali u hadiyay ayaan sidoo kale falanqayntan idinkugu soo gudbin doonaa waa Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee kooxda kubadda cagta West Ham United oo garoonka kooxda kubadda cagta West Ham ciyaarta ka dhaceysay runtii gudaha marka la fiiriyo bilowgii hore kooxda kubadda cagta Liverpool iyo West Ham ayaanu ku eegi doonaa qaabka ay ku bilowday ciyaarta haddii aanu ku eegno kooxda kubadda cagta Liverpool shaxda ay kusoo gashay caadiyan waxay ahayd 4-2-3-1 marka shaxda noocaas aad ciyaaraysid wax badan ayaa ka qaldanaa marka laga hadlayo kooxda kubadda cagta Liverpool bilowgeedii hore waxay isticmaashay goolhaye Alisson James Milner oo booski Arnold ciyaari طبعا booskaasi wuxuu ahaa mid kamid ah maalmihii ugu meyd oo kale ayaa la dhihi karaa sababtoo ma jirin dhaqdhaqaaq rasmi oo booskaasi ka socday waxay keentay kooxda kubadda cagta Liverpool inay ku dhibaatooto booskaasi in ay booskaasi uu noqdo mid aan jirin oo kale sababtoo ah kooxda kubadda cagta Liverpool waxa ay weysay baaska xidiga caanka Arnold kubadihii laadadka uu keeni jiray waliba dhaqdhaqaaqi iyo wax badan awood oo booskaasi ka sameyn jiray xidigaasi wax badan ayaa la waayay runtii waana ka sheekeyn doonaaye Matip ayaa sidoo kale Van Dijk iyo Robertson ayaa ku helinaya difaaca halka iyagu ay ahaayeen Naby Keita iyo waliba xidiga kale ee Fabinho kuwa burburiyaal ah saxda noocaas markaad ciyaaraysid wax badan oo qaladaad waxa la dareemi karaa sababtoo ah Fabinho ma xidiga kale ee Naby Keita maaha maalmihiisii waxna kuma jiro si adraadid isaguna waa uu murjinaya sidoo kale waxa la yaab lahayd maanta in lagu soo bilaabo Adam Lallana Firmino iyo waliba Mane laakiin Firmino iyo Mane waa shaxdii joogtada ciyaari jiray laakiin Lallana in la soo celiyo xidiga kale ee Henderson xidiga kale ee Shaqiri isagu keedka la geliyo Henderson la waayo طبعا haba ahaado Henderson mid dhaawacan laakiin waxa dhici karta in booskaasi meel ka wanaagsan uu isticmaali karo laakiin Shaqiri hadii uu joogo la qad ka dhex wax badan ay ka sameeyaan la marka la eego sidoo kale Mohamed Salah iyo waliba afka hore joogay Firmino wuxuu ahaa weeryahan labaad halka kooxda kubadda cagta ee xidiga caanka ee Sadio Mane uu isagu garabka ciyaaray kulanku gudaha markaanu ka sheekayno bilowgii hore kooxda kubadda cagta Liverpool waxay ku soo gashay ciyaar isdhay kareysay iyada ayaa fududeysatay waxay ka dhigtay ciyaartu inay tahay mid fudud isla markaana laakiin kooxda kubadda cagta West Ham waxay ciyaartay ciyaar aad u qiimo badan bilowgii hore waxay ku soo gashay dareen xoogan iyadoo aqrinaysa ciyaarta isla markaana weerar xoogan sameeynaysa waxay ku dadaashay kooxda kubadda cagta West Ham in ay iyadu ku ciyaarto difaac ahaan nidaamsan iyo weerar control attack isla markaana kubadaha weerarada degdega ay isticmaasho cagsigeeda Liverpool kubadaha gadaal way ka soo bilaabaysay Mohamed bilowgii hore waxa jiray fursado dhowr oo la abuuray inkastoo ay ku adkaatay in ay gudaha u galaan rigoorada sababaha taana waxay ahayd in saddexda weerarka oo maalmahoodii wacnaa aan ku jirin gaar ahaan marka la fiiriyo Mohamed Salah booskaasi Mohamed Salah maanta wixii uu muuqan waayo waxyaabaha waxa kamid ahaa marka aad booskaasi geysid waxa uu keenay in xidigu ku dhibaato sababtoo ah booskaasi wuxuu ahaa mid 3 ilaa 4 difaac ay joogeen sidradid kubadda xitaa inuu ku taabto booskaasi aad baa loogu ciriirinayay waxay ahayd cagsigeeda kooxda kubadda cagta Liverpool qaybtii hore markay ku dhibtootay ee kooxda bilowgii hore isku dayday in ay sameeyso gool ay daqiiqadii 22aad dhali goolkaasi waxa la tilmaamay in uu isagu offside u eka ama uu dhawaa marka la fiiriyo laakiin garsooruhu waxba muusan sheegin oo waa la soo baasay Sadio Mane isaga ayaa kubadda laxsaday oo dhaliyo inta wixii ka dambeeyay kooxda kubadda cagta Liverpool waxay isku dayeen goolal kale ay raadiso laakiin kubad lagu helay oo laad xoro oo balabaasay ayaa waxa ka dhaliyay xidiga caanka Antonio goolkaasi marka la fiiriyo qaladkiisa dabcan Alisson wuxuu kamid yahay goolhayaasha ugu waaweyn oo goolhayaasha la dhihi karo waxay kamid yihiin kuwa ugu dabcan xoogan marka laga hadlayo tayada iyo waliba kubadaha la ciyaaro sidoo kale wuxuu kamid yahay goolhayaasha lugahooda isticmaala ee gacmaha kaliya aan ku ciyaarin waxay ahayd marka in ugu yaraan kubadaasi uu joojiyo ama lugtiisa isticmaalo sidradid muusan isticmaalin si qurux badan ayaa goolkaasi ugu dhashay laakiin cagsigeeda kooxda kubadda cagta ee West Ham iyada ayaa dadaashay sababtoo ah marka aad bandhig wanaagsan la timaadid ayaa la dhihi karaa kooxdu waxbay qabatay ama muxuu ahaa la sayn karaa laakiin kooxda kubadda cagta ee West Ham waxay muujisay ciyaar qiimo badan sababtoo ah difaac ahaan way nidaamsanaayeen marka qaarkii 10 ilaa 9 xidig ayaa arkaysa kubadda gadaasheeda inay joogeen waxay ahayd mid xidig counter attack ku ciyaaray qaybtii hore waxa lagu soo gabagabooday
hal iyo hal. kooxda kubadda cagta ee Liverpool way ku dhibaatootay qaybtii dambe bilowgeeda inay wax ka bedesho, laakiin bilowga intaan la soo garin waxay ahayd garsooraha in uu isagu fiiri maruu ku ciyaaray 4-2-3 isagoo hal iyo ku ciyaarayo Salahna afka hore la geeyay. sababta Salah ugu muuqan waxay ahayd in difaac ahaan oo xirnayd iyo koox marka ay ciyaareysana difaac ahaan oo ay tahay difaaca afka hore ee aan la geli karin isla markaana gudaha rigoorada asal loo geli karin, waa in la helaa kubada geesaha ka yimaada. booska lambarka labaad oo kubadaha inta badan ay ka iman jireen lambarka labaad xidiga caanka Arnold ma joogo. mushkilada marka Milner booskaasi waxay yahay dabcan waa xidig daa booskaasina inta badan haddii xidig tayo badan booskaasi uu ciyaari lahaa Liverpool goolal kale ayaa laga dhalin lahaa, sababtoo ah qaybtii dambena fursado dhowr ay sameysay kooxda kubadda cagta West Ham. cagsigeeda kooxda kubadda cagta ee West Ham waa ay dadaashay, waa ay sameysay, waa fursado dhowr ay sameysay, laakiin kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaa ku adkaatay tababaraha inuu bedelo fikradaas. tan kale bedelka uu soo dahay oo waqti dambe yimid in Naby Keita iyo Fabinho isla ciyaarsiisid dhaawacyo iyadoo ay jiraan, waa sax dhaawacyo waa ay jiri karaan, laakiin haddana ma ay imaanin bedelka waqtigiisa. Shaqiri sabab maanta la dhihi karo waa uu loogu hayay qadka Keita ma jirin, sababtoo ah nin Shaqiri oo kale wuxuu ka mashquulinaya isla markaana awood u leeyahay in uu xidigaha waa xidig tayo badan, sidoo kale wuxuu awood u leeyahay marka ay ciyaarta difaacan caaw oo kale West Ham kooxda ciyaarayso in meelaha masaaxooyinka aysan jirin amaba firaaqada aysan ka jirin inuu ku gambiyo. sidoo kale waa awood uu leeyahay sidoo kale xidigaha banaanka ka shoodo, sidoo kale in aad kubadaha banaanka ka shoodid waa wax u fiican kooxda. sidoo kale ma jirin caaw marka waxa mashaakilka kamid ah keenay ay kamid ahayd gudaha marka la fiiriyo kooxda kubadda cagta ee West Ham qaybtii dambe waxaa la timid ciyaar aad u fiican, sababtoo ah difaac ahaan aad bay u nidaamsanayeen, kubadahana si fiican bay usoo bixinayeen. cagsigeeda waxaa jira fursado dhowr oo kooxda kubadda cagta ee lagu galay Liverpool lagu helay kubado dhowr oo diilinta ganaaxa ee rigoorada lala galay kubada cajiib ah ayay ahayn, laakiin nasiib daro kama aysan faa'iideysan West Ham, sababtoo ah haddii ay ka faa'iideysanayaan Liverpool waa laga adkaan kari lahaa, sababtoo ah qaybtii dambe ma jirin fursado la dhihi karay hal fursadood oo 90 daqiiqo timid Origi oo kubadaasi offside xataa ahayd oo laakiin garsooraha uusan iclaamin ayay la yimaadeen qaybtii dambe oo Liverpool la dhihi karay fursado dhowr waa ay sameysay, laakiin fursadaha banaanka rigoor ay ka soo sameynayeen, laakiin gudaha rigoorada qaybtii dambe waa ay yarayd in ay ka sameeyaan. kooxda kubadda cagta ee Liverpool sidaas ayay ku lumisay 3 dhibcood. maxay ka dhigan tahay marka 3daas dhibcood 3 dhibcood oo hadda oo kale ayaa lumisay? waxay ka dhigan tahay in maalmo adag ay jiraan, maalmo aad iyo aad u adag ay kooxda kubadda cagta Liverpool sugayaan, sababtoo ah Liverpool waxay ahayd mid dabcan ay dheereysan kartay. City waxay ahayd kulankii hore marka ay kuftay in iyadu ay ka faa'iideysato isla markaana ay dabcan Liverpool ay wax sameyso, kama aysan faa'iideysan kulankii Leicester ayay dabcan guuldarro la kulantay, waayo Newcastle ayaa hadiye u keentay oo kooxda kubadda cagta Benitez ayaa kooxdiisa hore hadiye siyaasi ugu faa'iideysto, laakiin Liverpool kama ay faa'iideysan oo Leicester ayay ku hor kufeen. sidaas daraadeed cagsigeeda kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxay la timid City xalayto way adkaatay tababaraheedii hore Manuel Pellegrini caawa hadiyad qiimo badan buu siiyay, maxaa yeelay 2 dhibcood horyaalka kaliya wuxuu noqday mid 3 dhibcood Liverpool ay ku hogaaminaysa. haddii sidan ay ku sii socotana waxay noqon doontaa Liverpool mid dabcan u lumisa hogaanka, waayo Liverpool kulamo adag ayaa sugi doona. kaliya Manchester City West kulanka soo socda oo Chelsea ayaa ugu adkaan doona dabcan ay la kulmi doonto, laakiin intaa wixii ka dambeeya waxay la ciyaari doontaa kulanka socda Arbacada kooxda kubadda cagta Everton, kadibna waxay sugi doontaa kooxda kubadda cagta Chelsea ayay u tagi doontaa. laakiin dabcan waxa ciyaar xiiso badan Liverpool ayaa ciyaar adag sugaya Bournemouth iyo sugayso Manchester United oo maalmo wanaagsan ku jirta iyo haddana gurigeeda Old Trafford ciyaar ugu martin doontaa. marka waxay noqon doontaa ciyaar aad u adag oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool maalmo aad u adag ayaa sugaya. sida hadday ku socotana waxay noqon doontaa mid aan sahlanayn, sababtoo ah kooxda kubadda cagta ee City fursadda hadda haatan ay haysato waxa ugu adag kaliya dabcan kooxda kubadda cagta ee Chelsea, laakiin haddana xaaladda ay ku jirto City ma xuma, laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta Klopp isaga ayaa ciyaarta isku adkeeyay, sababtoo ah ma jirin maanta sabab kayd loo geliyo xidiga caanka ee Shaqiri oo kaydka loo dhigay qaybtii hore, laakiin haddii uu isagu shaxda qaybta hore shaxda fiican muusan soo xulan, sidoo kale ma uusan sameynin in uu isagu bedelka waqti hore yimaado. bedelka waa uu soo dahay, ciyaaryahanadu waa ay daaleen, sidoo kale Salah xitaa haddii uusan sameynin waxay ahayd in uu bedelo ciyaarta ee 4-2-3 halka bedelo ee 4-3-3 toos ka dhigo, garabkaasi Mohamed Salah booskiisa uu ku celiyo, Mane booskiisa uu joogo, weeryahan afka horena uu geeyo xidiga caanka ee Firmino. xitaa waxay noqon lahayd in labada dhinac laga soo dulo, maxaa yeelay garabka Mohamed Salah uu ka ciyaari lahaa Arnold oo ka iman jiray ma jirin.
tababaraha xitaa xalkiisu uu soo dahay oo bedelkiisu uu soo dahay mana bedelin ciyaarta waayo haddii ciyaarta kooxda marka aad rabtid Salah afka hore inuu ku joogo way xiran tahay afka hore gudaha marka ma jirin kooxda kubadda cagta ee Liverpool aqliyad ku saabsan tababaraha maalin wanaagsan uma ahayn maxaa yeelay isaga ayaa isqalday natiijada waa la dhadhansiyay oo 3 dhibcood ayuu hogaanka kaliya ku wada haatan ciyaartuna way adkaan doontaa aad baad mahadsantihiin ugu xirintay dunida ciyaaraha tube fadlan sii share gareeya daawadeel sida ay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh